xilli dhawaan webiga Shabeelle uu ka fatahay tuulada Maandheere ee duleedka degmada Jawhar ayaa waxaa lagu guuleystay in guud ahaan la xiro goobtii webiga Shabeelle uu ka fatahay waxaana goobta uu webiga ka fatahay oo xirista lagu sameeyay gaaray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdilaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jawhar ugu horeen waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka hadlay fatahaadaha webiga Shabeelle iyo saameynta uu ku yeeshay maanta dhibaato weyn ayayna geersiisay dalag meel oo yani lagu waraabiyo matooro iyo meel yani xareed soo dhalisay oo la yaambay kharash la geliyay afkay marsatay mataqaana tuuliyal mataqaana alxamdulillaah rabbil caalamiin shukro صدن يونتا شن غوري وبابيسي يعني او ماندر كوتال طبعا وبابيسي marka waxa waaye alxamdulillaah rabbil caalamiin shukro kaliya ma baad leey daana geersisi daama daana geersisi sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Maxamed Sugaal iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Jawhar Xasan Barrow Bocor gabeynay boqdii weyneed ee ka baxday Maandheere oo tuulooyin bad galaafatay beero badan galaafatay muddo dheer muddo 17 cisho ah kadib waxa Ilaahay noo suura geliyay inaan maanta soo gabagabeyno boqdaas xiritaankeedii boqdii ka soo fakatay Maandheere oo in muddo 17 maalmood laga shaqeynayay shalayna noo soo gabagabowday ilaa saaka subaxii oo la xiray boqdaas biyaha ka soo fakaday waxay qasaare badan gaarsiiyeen tuulada Maandheere dadku waxay ku noolaan lahaayeen iyo agabkoodii halkaas ay ku baaba'een oo biyo ay baabiyeen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ugu dambeyn ka hadlay saameynta ay ku yeelatay fatahaada dhulbeereed aad u baaxad weyn kuwa ay jartay fatahaada oo dadaalkii iyo juhdigii la geliyay boqdi Maandheere oo dhibaato badan geysatay ay maanta noo soo gabagabowday cid allaale cid maaragtay gacan ka geysatay haday maamulka gobolka tahay midka degmada haday tahay iyo dadkii deegaanka tuulada Maandheere maaragtay dadaalkii ay ka geysteen waxaan leenahay mahad weyn ka gaarto xaqiiqada boqdaasu culeys badan ay nagu haysay waa boqdi haday meeshaas ka baxdo biyaas waxay gooy jireen wadadan dheer ee gobolada dhexe maaragtay Muqdisho isku xirto waxay gooy jireen wadada maaragtay 10 mood ay ka gooy jireen oo wadada afgooy maaragtay laamiga ka baxay oo baydhabo gelay halkaas ka gooy jireen xaqiiqadii culeys badan ay nagu ahaaday laakiin dadaal dheer kadib Allah noo suura geliyay maanta inay soo gabagabowdo 18 maaragtay mitir wax ciyaar ma aha waa dhul aad u weyn ay goosatay waxa laga shaqeynayna waa 20 maalmood ku dhawaada habeen iyo maalin la dul taagnay xaqiiqadii waa la dadaalay maamulka gobolka midka degmada ee dadka deegaankuba maaragtay wax muuqday ka qabteen ma hada ka gaarto dhibaato badan waa geysatay xaqiiqadii dalag badan ay baabi'isay beero badan oo badar ku yiilo motor lagu waraabiyay iyo mid maaragtay hadda loo diyaarinayay iyo mid xareed ku soo dhashay inta way baabi'isay tuulooyin ay maaragtay guriyay baabi'isay xaqiiqadii tuulooyinka ay gaareenna waa tuulooyin aad u ballaaran ay gaareen Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jawhar.